يعني والله قصو دران دريي مدحوينه حسن شيخ waxaan rabaa inaan xasuusiyo 4 sano ka hor aniga asiga waxaan isla joognay hotel jazeera waana la soo weeraray wiilashina la socday khayr Allah siiyo maa'ida difaacay galeen waa iska caabiyeen waa ka hortageen dhimbasho iyo dhaawac waa yimaadeen nabada uga soo tagnay madaxweyne xasan waxyaabihii aniga asaga aan isku qabanay waxa ka mid ahayd abaabulan ganayna ciidamaan soo galinaa beeshaan la hadlaynaa iyo ma sameynayna dagaalka doo istaaga halkaas ku istaago caawa iyo habeen hore way isku ogyihiin shalay annaga waxa naga dhintay wiil aniga darawalkayga ku dhintay darawalka madaxweyne xasan waa ku dhaawacmay waa laba qof hadda waxa dhintay wiil inta aan ogahay wiil kale waa la sheegay Allahu ya'lam waa la soo ogaa doonaa wiilna waa dhaawac dawladnimadu waxay ku dhisan tahay sharci haddii sharci la waayo nin walba taagtaada fuula imaanaysa noomana roona waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno annaga dagaal ma wadano xabada ma sidano cidaan dhib ku naamala waxaan sa garab taagannahay dadka madluumiinta ee Soomaalida ee la dulminayo oo aad aragteen aan garab taagannahay maxay tahay marka madashu waxay sameynayso madashu waxay rabtaa inay ku baaqdo Soomaali meel ay joogto mudaharaad nabadeed oo lagu diidan yahay falalka waxshinimada ah iyo dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho mudaharaadkaas wuxuu bilaabanayaa Ilaahay idankiisa maalinta Sabtiga ah bishaan aan ku jirno ay tahay 27ka wuxuu ka dhacayaa 3 goobood goobta koobaad waa Siinay goobta labaadna waxa waaye Daynile goobta saddexaadna waxa waaye Isha Tarabuunka aan ku celiyo Siinay Daynile iyo Tarabuunka waxa la rabaa qof walba Soomaaliya qof walba damiir leh inuu u soo baxo tuugada haddaan aan ka hortagin guryaha inoogu imaanayaan kuma joogsanayaan sidaas waa macagtoobeen xuduuday dhaafeen waa ismahadiyeen waxa la rabaa xadkooda in lagu celiyo sida ay sheegayseen maanta laga hadlayo dastuur laga hadlayo doorasho laga hadlayo shaab lala diriro laga hadlayo ummadda haleeso kana waxa laga hadlayaa tuuganimo